السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلها بونداو ديال إذن لهانتي بمول بدون دعالة كتشوكتان كسو دوادا برامجك مرتضى oo ka daawan jirteen qorraxay web TV iyo sidoo kale SMTV oo maanta martin noogu tahay halganto gaari oo kamid ah ciidanka tibadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya kana mid ah nafti horayaashii dhigooda u soo horay ciidanka Ogaadeniya kusoo dhawo halganto gaari qorraxay warbaahinta qorraxay web TV iyo sidoo kale SMTV mahadsanid walaal aan ku dhawahay ama waxaan salaamayaa warbaahinta tibadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya web TV Lace TV iyo dhammaan inta kale ee hadda magacooda xusuusnayn kuwaas oo iyagoo mushahaar iyo deeq midna cidna siinayna si mutadawaca oo dar Ilaahay ugu shaqeynaya dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda waxaan kaloo salaamayaa dhammaan ummadda reer Ogaadeniya meel kasta ay joogto waxaan salaamayaa madaxda tibadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya iyo ciidamada dhammaan bulshada qaybaheeda kala gedisan baan salaamayaa walaal waxaan jeclaan lahaa aniga daawadayaashaba in aad bal taariikh nololeedkaaga oo kooban inaad wax nooga taabato noo faahfaahiso runaantii taariikh nololeedkayga haddaan taabto ama aan dib u fiiriyo waxaa laga yaabaa inay nafteeda ku yeelato saameyn qeyro oo xusuus dheer gelisa laakiin waxaan ka soo qaadanayaa qodobo yar oo ummadana anfacda anigana taariikhdeeda xusaysa anigu waxaan ku biiray ciidanka tibadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya 2 baan ku biiray xilligaas da'deedu aad ayay u yarayd ma aan ahayn qof magaalo ku dhashay wax bartay ka fahmay halganka magaalo ama meel qorshe ka socda laakiin qadiyada Ogaadeniya waxa ay fahansiisay xilliga dhiigi daadanayay iyo naftoorayashta wadaniga xoreynta Ogaadeniya ee jiida hore ku jiray waxay ahayd dhacdo si khaas ah ii taabanaysay xilli kasta iyo waqti kasta oo la joogo reerka duleedkiisa waxa yaalay meyd ama naftuuro shahiiday meydkiisa yaalay taa ay u kaliftay inaan ku biiro ciidanka tibadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya oo aan dareemo xanuunka iyo kuleylka uu gumaysigu leeyahay xilligaas anigoo jooga meel gobolada Ogaadeniya kamida yaa reerkanaga waxa yimid wiilal naftoodurayaal ah oo ka tirsan tibadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya hadda waxba kama noola Cabdullaahi ugu dhalin ku jiray danab Sheekh Ismaaciil Alla raxma reerka yimaadeen reer korkiis dagaal baa ka dhacay aniga waa la qabtay meesha gobolka qorraxeed shicib baa la oran jiray waxa la igu xiray meel ka tirsan qabala ka tirsan qorraxeed ceel xaar la dhaho anoo xilliga aad u yartahay xilliga aan xidhnaa ninkii gumaysiga xilliga gaalada Sawdhe la oran jiray aad baan u xusuustaa nin Tigray ayuu ahaa Sawdhe su'aashu i weydiin jiray waxay ahayd kolka laga soo taga ciidanka kale dhibaatada iyo garaaca ii geysanayaan wuxuu igu dhihi jiray fikirka oo wana lif ma ka tanaasuleysaa markaan dhaho kama tanaasulayo wuxuu dhihi jiray qofku qadiyadiisa iyo afkaartiisa waa u xor garaaca laga day aad baan u xusuustaa marka waxay i tusaysay waxaan ku socdo inuu wax xaqayo xaqaygu raadinayo taas ay u kalaftay inaan ku biiro ciidanka tibadda xoreynta Ogaadeniya su'aasheeda koowaad maxaa kugu kalifay gaariga adoo gabadh ah inaad raacdo jabhad waysan oo dagaalamasa oo dagaal ku jirta maxaa kugu kalifay walow aan ognahay dumarku inay uga jiricsan yihiin ragga rafaadka iyo dhibaatada la marayo raggu ay uga adkaysi badan yihiin dhibaatada iyo marxaladda ku sugnaayeen maxaa kugu kalifay dabcan saan wada ogsoonahay dumarku waxay maraan marxalado kala duwan sida toddobaad ay xanuunsadaan baa jira dabcan waxaan ogsoonahay goobihii aad ka halgamayseen naftoorayasha ku ahaydeen inaan laga helin biyo iyo wax lamida marxalad noocee ayaad wajihi jirtay xilliga ka dumar ahaan wallahi waxaan wajihi jiray marxalad adag oo hadda qofkii soo maray mooyo qof kale aan looga sheekeyn karin walow aan ku tiirsanayn ciidanka tibadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya oo aan dhihi karo wuxuu ahaa ceel biyalo il ah sababtoo ah duruufuhu markayna soo wajahan ragga aan dheernahay waxa dhici jirtay dadka qofka naftuuraha wuxuu ahaa beer biyo cad hadii la helo inay wiilashu dhihi jireen gabdhaha aan beer ugu daro si ay wixii marka dhibay soo wajahay isaga dabaraan marka dhacdooyinkaas waxaan dhihi karaa waxa naga caawin jiray markasta oo ku tiirsanayn ciidanka tibadda wadaniga xoreynta waa in wiilashooda geesiyaasha in halganka xilliga iyada ay wada wadnay oo duruufteeda dabari jiray baan leeyahay waxaad iga warbixintaa adoo gabadh ah oo hubaysan markaad duurka joogtay marxalada noocee ayaa ku soo wajihi jiray wallahi lama soo koobi karo marxaladaha isoo wajihi karay waxay ahaayeen ragga waxaan dheeraa waxa jirtay qof dumar ayaa tahay mustaqbalka laga maarmo ninku markuu guursado xaaskiisa wuxuu kaga iman jiray reerka oo xaaskiisa isagu way kala duwanaayeen annagu ma aanan guursan karin xilliga rag shacab ah oo reerahooda jooga
xilliga iska nool aan naqaanay asaga laftiisu waa naga cabsan inoo ma soo istaagaynin kolkaad guursato naftuura ka tirsan jabada wadaniga xoreynta ogaadeen idinkii wada socdaan aroortii isku mar aad diyaar garoobaysan idinkoon qabaysan idinkoon ku talagelin oo isku mar aad kala haysin taas waxaa noo dheereed inaad asay ku dhaxqaado duurkii oo naftuurahaadi goobtii ku shahiido oo adoo asay wada oo basaasan oo dhibaataysan oo caqabad ku soo wajahday inaad la socoto ciidanka jabada wadaniga xoreynta dagaalkana aad la gasho jiida horena aad ku jirto caqabadaha u kulkulla gabdhaha ciidanka soo wajihi jiray taasay ahayd oo haddaba ay jirto gabdho ciidana iyo naftoorayaal ciidana oo wada shiido dagaalku wada shiiday awlaadoodii markaa waa dareemi kartaa ama caqabada ama dhibka ay leedahay sidoo ilmaha kale markuu aabihii waayo hooyadii ugu aayi jiray meesha waxaa kaaga cad ilmahan inuunu helaynin hooyo iyo aabbo midnaba uu aayo oo ilmahaas saxada ku banaynayo ama duruuf adag soo wajahayso caqabadaha ay ku kulkul in hadda xusuusta kuwaasaa ka mid ah heshiiska Itoobiya oo ay wada galeen ciidanka jabada wadaniga xoreynta ogaadeen lagu wareejinayay qodobkaas waxa ku dambeeyay ciidanka jooxa maxaa ka soo cusboonaaday wallahi ciidanka jabada wadaniga xoreynta ogaadeenaya ciidanka oo wanalif si ku jirto siyaasinimo heshiis ku jirto daacadnimo ku jirto iyo wuxuu noogu wareejiyay dawladda federaalka Itoobiya xilligaas xariyaha iyo goobaha aan deganayn waana laga soo raray waxaana lagu xareeyay garab case waxaana lagu wareejiyay dawlad deegaanka laakiin hada dawlad deegaanku iyo anagu isku mid nahay waan u arkay xilliga waxaan dawladda federaalka Itoobiya ayaa halka in ciidanka iyaga la keen u sababahayd anagu runaantii ma aan helin sidii aan u baahan ama nalama maaraynin baan oran karnaa kolkaan aragnay duruufta iyo xaaladdu sida u socoto oo waxyaalaha dhammaan heshiisyadii lagu heshiiyay aan aragnay total Itoobiya inay ka baxday oo ay jabisay anagu maadaama dalkuna dalka iyaga dadkuna dadka anagu heshiiskan aan ciidan ugu qasbina anagu aanu qaadanay oo nu si dhaba u qaadanay oo aanu ku talagalay xilligan kala guurka adduunka ku jiro inaanu qayb ka qaadano nabada dalka iyaga iyo dhisida dalka iyaga iyo dhibaatada dalka iyaga anagu waxaanu xal moodnay inaanu dib ugu noqono ehliyaadka iyagii oo aanu wadanka iyaga iyo noloshayada iska galon caalamkanaga iska kala galo ciidanka only total waxa lagu ogaa federaalka Itoobiya oo lagu wareejiyay mas'uuliyadiisina iyaga qaaday laakiin markaanu aragnay wax u socdaan anagu waxaanu dan moodnay noloshayada inaan iskaga aadno anagu meel aan nololka qabanaba hadda aan garanaynin oo waxaan ku jiray dagaalkii qorigiina laga dhigay wax khibrada aan lahayn wax barasho lahayn ganacsi naloo furin nolol na siinin wax meel oo Itoobiya nagu ogtahay jirin haddana si amni oo nabadgelyo xasilooni ku jirto yaanu dalkana iyo dadka iska dhex joognaa qodobka ugu soo laabto gudihi aan ku soo laaban hadda saan way ogsoonahay deegaankeena waxa ka jira colaado badan oo u dhaxeeya qabiilada hadda ka hor door inta lag bad qabay colaadahaas oo kale markay dhacaan markaad naftuurayaasha ku jira ahaydeen door inta lag bad ka qaadan jirteen hadda door inta lag bad ka qaadanaysaa anagu runaantii bulshada iyadu duurkay ku jirtay oo laf iyo dagaalkan ku jiray dheera waxay ka dhaxashay isjacayl iyo walaaltinimo shacabka ogaadeenaya geesiga oo lafta waxay u yaqaaneen daawadii shacabka u yaqaaneen waxaanu suulinay wax qabiil la dhaho waxaan suulinay wax dagaal qabiil la dhaho waxaan suulinay wax burcad la dhaho totaaliba qoriga Itoobiya ee soo dhacaya iyo koonlif wuxuu dhaxay oo dhibaato oo dalka iyaga ka jirtay ama wajihi jirtay ma jirto iyadoo xilligii hore gumaysiga Itoobiya dadka iyaga ku barbaariyay qayb iyo xukun oo qabiilba qabiil lagu gumaysto taas oo la dhihi qabiil hebel baa qabalaha ay qaatay ul cidla lagu mashquulinayo dadka iyaga yaanu ka korinay qabiilkii ciidanka onlif door muuqda oo libaax u ka qaatay haddana waxa dareemi kartaa colaadihii xilliga onlif nabada qaadatay halkoodii ayay ka aloosmeen dhammaan eegana waxaanu ka qaadan karnaa door muuqda bulshada iyo dalka iyo diinteeda inaan dadka naga nabadeyn u fidino oo dadka iyagu waa dad islaana hal dalaan nahay halafaan nahay Soomaalidaan nahay hal dhiigaan nahay qofkanu ha ogaada meeshan uu walaalkii ku dilahayo Mareykanka waad ogtahay hal gobol oo Minnesota ka intaas oo kun oo milyan oo gala jimsi ku nooshahay dadka dalka iyagiina dad la'aan buu u baabaya dadka nageena baahim u baabaya dadka nageena door cidla oo gumaysiga qabala uga taagay oo cadow ka faa'iideysay wadadka iyaga is wada leynaya waxaan dhammaan ugu baaqayaa bulshada reer ogaadeenaya dibkii dheeraa 34 sano ay ku soo jireen intii ka horeysay anoo ku hore duudsaynin Axmed Gurey ilaa iyo sayidkii inay ka dhaxalaan khibrad wax ku oola oo qofkan ogaada markuu qof walaalka islaana dilo awal ilaahay inuu cadaabayo qofka dhulka uu ku leeyahay 5 mitir dadka haybka waxa lagu sameeyay qofka inuu ku raaco oo jimsigiisa lagu bartay laakiin inaan isku dilo isku taargetsano inaga oo adduunki maanta halku maraya aan ognahay aan dhul cidla isku leeyna aad iyo aad baan uga xumahay baaqaasan dhammaan u diray bulshada reer ogaadeenaya islaana gaari way sababayaan colaadahan maadaama hadda ka hor ay dhici jireen markay naftuurayaasha ku jireen intii heshiiska oo Itoobiya wada galeen
محاسبة أصلها على هذا حتى بالوضع قبيلة waxaa sababayaan anigu leeyahay xilligii ururka oo laf duulka ku jiray ee joogay bulshada oo laftu ciidankeeda way tixgelin jirtay ciidankoodii way arkayeen waa la xishmeyn jiray dagaalkana waa la joojin jiray dadkana waxay aaminsanayeen dad walaal isku yeelanayeen waxaan aaminsanahay gumaysigu dadkii waa ogtaa inuu kala raray dadku way degi jiray uu kala guursan jiray ehel baa la ahaa gabadh iyo wiil baa la ahaa waxaa la bilaabay in qof kasta la dhaho qabalahaaga isku soxo qabalahaaga ma soo dhaafi kartid taasaan anigu aaminsanahay dhibka inuu keenayo dadkana inuu isku darayaan aaminsanahay anigu gumaysiga oo u adeegsada qayb iyo xukun oo dib loo mashquuliyo maskaxdooda raadkooda dib loo qaadsiyo ayaan anigu aaminsanahay waxaa la doonayaa inayna ka gudmin jaranjarta gumaysiga oo ay cimrigood noqdaan kuwa u nuglaada gumaysiga oo aan waxba fahmin baraaruman anigu aaminsanahay iyo jahli iyo aqoon la'aan dadkeenu waad ogtahay ma bartaan waxbarasho wax la dhaho qofka bini'aadmigu markuu wax barto waxaad aaminsantahay shay la dhaho nolosha inuu fahmayo anigu xilligan duurka ku jiray aan raacay waxaan ahaa qof aan waxna qorin waxna akhrin wax qoraalka waxaan ku bartay ciidanka Wanalif quraanka sidoo kale Wanalif baan ku bartay xilligii aan eega xilligan taaganay hadda nafta maanta ka jeclay naftu waxay tahay in noloshu aan qiimeynaya maanta waxaan jeclaan lahaa inaan xorriyadooda si dhow u gaadho laakiin xilliga hore kuma fikri jirin marka waxaan aaminsanahay dadkana aqoon la'aan boqolkiiba boqol iyo inay gumaysi oo qayb iyo xukunaysa inay sababayso walaal dagaalka qabiilka bayn maxad kula dardaarmay bulshada reer ogaadeenaya oo kula dardaarmay gatin lahayd qadaarka u dambeeyay ku yahay dhammaan waxaan ugu dardaarmayaa bulshada reer ogaadeenaya shacab weynaha iyaga geesiga ah iyo dhammaan qof kasta oo u dhashay dalka ogaadeenaya markaan ogaadeenaya waxaan jeclahay Soomaalidu inay fahanto ogaadeenaya horta inay ahayn qabiil waa waxyaalaha xataa gumaysigu hadda ku mashquuliye kaga faa'iideysanayo hadda hadii la dhaho Soomaalida Itoobiya waan ku qanacsanahay laakiin bilaa qadar waxaan jeclahay dadku inuu ka gudbo eraygan uu ku noqnoqonayo waxa uu bixiyay gumaysigii Ingiriiska dalka gumaysanayay waa raad aan ku raadinayna xaqeena iyo xaqiiqadeena ma aha eray taariikhi oo si dhab aan rabno nolosheena inaan isticmaalo dadku waa inay fahmaan wixii inuu yahay raad hashil luntay lagu raad qaadayo oo hashada haday fadhacgo cagta ku lahayd raadkeed inaad hay geelan aad kaga garanayso taasaan jeclahay taas ta kale labaad waxaan u dardaarmayaa dadka yaga waxa lagu jiraa xilli kala guura waad aragtaan Oromiya waad aragtaan Xabashi waad aragtaan Tigray waad aragtaan qoomiyad kasta waxaan jeclahay dadka yaga inuu ka soo gudbo dhibkii aan soo maray iyo dhibaatadii iyo xasuuqii iyo dhibaatada inaan ka dhaxalo wadaniyad iyo isjacayl aanuna u gudubno midnimo qaran waxaan u dardaarmayaa dadka deegaanka jooga ururka Wanalif ka mid ahayn anagu runtii cidna nama qasbino heshiiska anaga qaadanay mar kasta waxaan jecelahay inaan kiina dilo cafino kan dilayna in cafiyo waay markaan saa ku leeyahay hadaan cafis imanin midnimo ma timaado midnimana lama gaaro war waxaan jecelahay ceelkan shalay ka soo baxnay maanta inaan dib ugu noqonin inaan ka xumaanin Oromo inaan mustaqbalkeena iyo rajadeena si dhab ah u wada raadsano inaan qof kastaba ku baraarugto maskaxda aad ku xiroodo qalbiga aad ku xiroodo xaqi umadeena ay raadsato waxaan leeyahay dhalinyarada reer ogaadeenaya ee OSU iyo dhammaan ardayda ogaadeenaya iyo dhammaan ardayda Soomaaliyeed umada Soomaaliyeed waad aragtaan qayra maanta meesha ay marayso heerkay taagan tahay waxaan jecelahay inaad kor u soo kacdaan maanta anagu halgankii qoriga aan wadnay waan dhignay idinka ayaan idinku wareejinay halka uu taagan yahay kubadda goolka inaan ku wada salaxno xornimada anigana idan ma idinkana dhamaanteen waa udan halkaas aan kaga baxayaa taas daawadayaal waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkan oo maanta oo ahaa barnaamijkii martida oo ka daawanaysan qorraxa web TV iyo sidoo kale SN TV waxaan la socodsiinay barnaamijkan anigoo ah Axmed Cabdibaarax kan kaamada waxa iga caawiyay saaxiibka Afroosh sanada waxa martii uu ahaa halganta gaari oo kamid ah ciidanka jabada wadaniga xariinta ogaadeenaya aad baa kaaga mahadcelinaya halganta gaari waxaan kaga tagnaa isku duwan barnaamijkan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.